السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام بدمان أصحابتي قالقة. أصحابتي قالقة سيتين في عنتين من نبات قبتين إلهي إذا كيس وإذا رجعنا ملك الدنيا كجوكتان إيه سود هذا نو سود هذا خير إيه فرحات إلا سود هذا إسكو سو نقد كلو وناكسان خير تشربت لأرد بيبرد دال welcome هذا اللي هاي ما شاء الله haye waa maamwaane mar kale iyo faahfaahin kale qaybta hoose ee cashir bixinta. welcome, soo dhawaada dhammaantiin, khayr iyo farxad soo dhawaada, caafimaadku cuna ku caba ku ceesha soo dhawaada. xagga channelka walaalaha joogo reer dabiib reer dadaal waxaa layidhi ubixii la waraabiyo waa nuura iswaraabis wanaagsan. qaybta hoosena insha allah cashir bixin wacan oo wanaagsan. haye soo dhawaada cashir bixinta caawa maasha allah. dhanka fertility-ga ku foorartaa waa ogtihiin aan umaleynaa fertility-ga nafaqa badana loo baahan yahay. allaha sahlo allaha saqiro saas aawadeeda qaybta hoose u fariisateen insha allahu khayr. caafimaadku cuna ku caba ku ceesha. nafaqada maanta waxay qusaysaa insha allah amin waa dhir aada u qaaliya, meel kastana waa laga helaa. allaha sahlo, inta badan online aa laga helaa laakiin dukaamada qaarkoodna macquul in laga helo. haye soo dhawaada khayr iyo farxada soo dhawaada. dhirtan waa xagga bustiga waaye, fitamiinaad badan ee kor usoo qaada amaba ay sidataan, qaas ahaan fertility-ga wax u fiican ku jiro ama difaaca jirka. marka fadlan si toos u qaata, linkana waa idiin diyaar. haye maalin walba dhowr xabaa ka qaadan kartaa laakiin fara ku tiris, wax badan uma baahnid maadaama fertility-ga u fiican tahay. wax badan ma u baahnid inaad ka qaadatid. artikoola badan ee wadataa akhrista insha allah. markay noqoto difaaca jirka waa okay, caafimaadka caloosha weight loss way leedahay. arinka kale waa dhiirigelinta xagga inaad soo dhiig celisid. thyroid galaanka aad aa loogu ammaanay maasha allah. ugxaan kobcinta gabdhahan ugxaanta kobcinayo maasha allah. quruxda iyo hanaanka xagga follicle-ka tinta wax badanaa loo ammaanay. marka wixii dabiiciyaa la rabaa sax insha allah. dhirta qaarkood horta wadankeena maba ka baxdaba completely magac loo yaqaano xataa dadkeena ma yaqaanaan. marka dibadahaas lee laga helaa. waa wax raggana cuni karaan dumarka cuni karaan. xagga raggoo kale waxay ka caawisaa testosteronkooda like tabarta, hormoonka tabarta iyo dareenka ragga iyo xooga. dumarkana fertility-ga hormoonaadka fertility-ga qaabilsan. xulustoo kale way baabi'isaa, caadadoo kale way fiican tahay. marka nafaqooyinka qaarkood maasha allah markii muddo la qaato isbedel fiicanaa la arkaa. dhinaca su-aalaha gudaha dabiibkan galeynaa waxyaabaha qaarkood inaa idiin diyaariyo waxaa dhalayo waxaa suurtageliya waxaa dhalayo leeyahay waxaa suurtageliyay gabdhaha saaxiibada ee kasoo cabanaya ciladaha sida thyroidka, caada qalqalka, daalka, tabar la-aanta, waxyaabahaas oo dhan waayo. marka ii soo dhawaada noo soo dhawaada khayr iyo farxad soo dhawaada. cashirada dhinacaanan usoo wareejin doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. haddii aan videoga idiin soo raaciyo cashirka maku geyn doono maamwaane saaxiibada qaaliga intuu ku keeni doonaa insha allah. dabiib iyo dadaal adinkana daawasho wanaagsan ama dhageysi wanaagsan. waa un dhiirigelintiina maadaama xagga codka aan joojiyey oon video ahaan idinkugu soo gudbinaa dhahdeen codka wuu naga dhumaa. haddaan idiin soo raaciyo codne waa idiin soo raacina insha allah. haddaan soo raaci waayana iga raali ahaada. saa idiin sheegaba waxaa u baahantihiin wax yaroo fara ku tirisa maalin walba. haddaa rabtid nafaqada waa shiida kartaa, boorashka waa ku darsan kartaa, ismuudiga waa ku darsan kartaa, caadi waa u cuni kartaa. haye nafaqa badanaa jirto insha allah. intaan idiin dadaali karaa idiin dadaala. idinkana waxaan ilaga rabaa inaad meel fiican dhigataan, sii barataan, artikolkeedii haysaan, akhrista insha allah. xaajiga adiga waa idinkaasaa haddee isku roonaasho wanaagsan. marka lasoo weynaado adi kule 40ga lasoo gaaro ama lagu dhadhawaado 30ka wixii ka dambeeyaba nafaqa fiican oo tab ee inaa qaadatiin waa. ama ha noqoto cunto iska fudud ama ha noqoto fitamiinaad maaragta sii xag jiro iyo dhir sii xag jirtaba. marka fadlan qaata nafaqada iskuna aqoosha ama isku balance gareeya nafaqadiina. okay, dhanka su-aalaha haddii aan si dhaqsiya ku galno. walaashaan waxay tiri maamaana waa ku salaamaa salaanka bacdi aniga xagga thyroidkan ka xanuunsanahay waana sixi waaye balansigeeda. fadlan nafaqadaa meel fiican dhigo
insha allahu khayr. Walaashaan kale waxay tiri maamuwaana ku salaama gabdhaheena gudaha dabiibka ku jira waaya dhanka dhoodhoojinta fadhiya waaya gabdhaha aan codsigooda soo gudbinayo. Walaashaan waxay tiri maamuwaana waa ku salaamaa salaan ka bacdi aniga caadada saani iigama timaado ageen nafaqadan maalin walba dhowrkaaga xabo ka qaado insha allah. Nafaqooyinka usii fiican way soo galayaan gudaha insha allah. gabadhan kale waxay tiri maamuwaana waa ku salaamaa salaan ka bacdi habar yaree macaane aniga bilna caado waa igu dhacdaa bilna iguma dhacdo waayahaanan saas ku arkay dabiibkana waa ku cusbahay. Okay, waqti sii dabiibka insha allah 6 bilood 1 sano oo weliba toosa nafaqa fiican faahfaahintan insha allah iyadoo ka kooban intaa soo geli doona iyo dhiirigelintaba nafaqooyinka usii fiican insha allah caadada ugxaanta iyo ciladaha jira waa idin soo gelina adinkana qaata article-koodana akhrista waa hortiina taalo. Okay, insha allah khayr habare sug sabar ilaa 10 sano cimrigaagaaba waa 1 sano. Okay, gabadhan kale waxay tiri maamuwaana waa ku salaamaa salaanka bacdi aniga xagga wejiga ee cilad iga haysataa nabraha agniga iga soo baxbaxo bil walba caado intaan helin caadada waa helaa laakiin nabrahaas ayaa idaba socda. Okay, nafaqadan waa ujeeda article-keeda wuu ku qoran yahay inuu agniska u fiican yahay iyo nabraha caadada la socda ee wejiga haaro u yeelo. Sometimes gabdhaha waxay dhahaan haarihii hore anuun ka boganin ee caadada kale igu imaataa waaye 4 isbuuc waa wax yaroo kooban. marka insha allah sabar maama maalin dhaweedna saliido badanaa soo geliyay fadlan raadsa saliidahaas hadduu ilaahay yiraa waana idiin soo gelin doonaa insha allah waxyaabo kaloo la marsado oo wejiga nadiifiya haarahana ka bixiyo. Okay, ii soo dhawaada kheyr iyo farxad la soo dhawaada. walaashaan kale waxay tiri maamuwaana waa ku salaamaa salaan ka bacdi aniga waxaan muddo dheer qaadan jiray caano iyo shaax kafee qaxwo wadnaha i gariiraayo marka maxaa sameeyaa article-ka haddaad akhrisid qaybta wadnaha way ku jirtaa inay nafaqadana caaw soo gelinayo ama heebkan ama nafaqadana soo gelinayo inay wadnaha u roontaa wadna gariir wadna garaac wadna dhufsasho iyo huufidda like naqaskaba ku dhibaayo insha allahu khayr. Okay, walaashaan kale waxay tiri maamuwaana waa ku salaamaa salaan ka bacdi maadaama dhiig aad u fara badan bil walba aniga iga baxo waxaa igu dhacay pigmentationka iga xumaaday wejigayga wuxuu noqday kala kalar ama indhaha hoostooda aad iyo madoobaatay. Okay, kor haddaa u kacdo article-ka koowaad article-ka labaad quruxda maqaarka inuu u fiican yahay oo ujeedaa nafaqadan so insha allah joogto u qaado. sidoo kalena waxyaabaha u fiican quruxda iyo maqaarka waa soo gelinaa programka u fariisa insha allah article-kana waa kuu soo haddaan ma dhihi kara binkan saaraa laakiin mustaqbalka waa soo xariiqaa saa u fahantaan. Okay, walaashaan kale waxay tiri maamuwaanoy waa ku salaamaa salaan ka bacdi habar yaree macaane aniga ugxaan korintaan aad u daneeya cuntooyinka ugxaanta koriyo markaad soo gelinaysa faahfaahinta please soo sheeg kii ugxaanta korinayo dhanba aniga inaan gooni u dhigtaan raba wixii ugxaanta korinayaba aan gooni u calaamadeysto si aan qaybtaas u badsado. Good idea. haye insha allah waa sameyn doonaa hadduu ilaah yiraahdo kana wuu kuu korinaa oo waa fertility boost haddaa meel dhiganaysid thyroidka u fiican caadada u fiican fibroidka u fiican wax badan u fiican yahay xataa relax the muscles so makaanka waa muruq ama muscle so masaladaada dhan u relax ka dhigaa caloosha u roon qurxinta u roon hormoonka u roon ama symptomyo badan u roon yahay research noo ku samayn kartaa article-koodina waa kana linkaa ku gadan laheedna waa kaasa kheyr allah siiyo kheyr allahna sii dhammaan asigoo organiga ka doono insha allah amazonka haddii kale magaciisa la deg ee ka doono dukaamadaada dabiiciga the choice is yours. Okay, walaashan kale waxay tiri maamuwaana ku salaamaa salaanka bacdi aniga waxaan wataa ra'yi caadadeeda 3 bilood hadda ii saxan tahay baby misku diyaari karaa IVF aan rabay inaan iska galo waqtigaa xoogaa i haayo marka maxay kula tahay fikradaas. maama waa aadi kartaa IVF laakiin marka lagaa qaado ugxaanta oo la fiiriyo sayska haddaa soo buuxin weysid gadaal usoo noqo waaye ayagana irbadihii bacrimiska inay kugu daraan waa khasab soo diyaar ma u tahay mis leedahay ugxaantaada waa diyaar 3 bilood xoogaa yar waa ila sahlan tahay marka haddii aad awoodid insha allah iska sug 3 kale samarkoo kale aad marka xoogaa qoraxdu soo baxda hadda winter lagu jiraayo
haye siidaa su-aalaha qaybta dhoodhoojinta caafimaadka reer dabiib reer dadaal iyo cashir bixintii waaye saanaan insha allah inta ugu soo wareegi doonaa cashirkii oo ka kooban faahfaahintiisii walaashay danaynaysa inay la soo xiriirto waa welcome nambarada laga helo adeegii ku dhex jiraan insha allah haddii kalena waa inoo gudaha dabiib iyo dadaal hadduu eebba ka raali noqdo waa inoo faahfaahinta kale hadduu ilaah yiraahdo reer dabiib oo caafimaadku cuna ku caba ku ceesha khayr badan iyo farxad allah idinkugu daro nafaqooyinka aan idiin soo geliyo mar walba ama aan idiin soo wado mustaqbalka dhammaantii waa salaamaa salaamo badanaa arkay ducaan arkay waa isku xiisa qabnaa waa sheekaysan doonaa hadduu ilaah yiraahdo ii suga ii safar adeegyada aan idiin adeegayo ama aan diyaarinayo ayaa waqti badan qaadanayo marka isla tacaalo wanaagsan dhammaantiin kusoo dhawaada janalkeena dabiib iyo dadaal brograamka hoose walaalaha fadhiyo dhammaantiin isla tacaal sahlan oo wanaagsan mac salaama dhammaantiin waa salaama isku soo noqod kaloo wanaagsan hayahe caafiya caafimaad waa inoo dhiirigelinta kale iyo faahfaahinta hadduu eebba yiraahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu